codkii habeenka ee qawraha. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada daawashana sharafta badan. Kusoo dhawaada qalkeena maanta. Saa u joogno baas ka soo dhex xadirinay suuqa weyn oo YouTube ka dhex asaasnay hal maqaaxi oo aan ku ogeyn macaamiisheeda meelna. Taasuna ay ka dhigan tahay inaad noqon doonto macaamilka ugu horeeyay oo soo booqda channelkeena. Markaa waxaan rajaynayaa inaad nagu soo dhaweey doontid YouTube. Halkaas ka dhig subscribe-ka like aad ayaad u mahadsantahay. Halkan waa Baharnaari. aniga waa iskii salaama waxaad naga heli kartaa qisooyinka caalamka oo dhab ah kala dhaca dunida dacaladeeda kala duwan qiso farxad leh mid jacayl mid murugo mid cabsi mid surdoon mid dambi baadhis ay qiso insha Allah halkan ku wadaagi doonaa anaan ku saaxiibi doonaa noqo macaamiisha kamid ah channelkeena cusub oo la jaan qaaday commentigana noogu soo qor haddii aad tahay macaamilku si aan u fahanno inaad tahay macaamilkii ugu horreeyay oo kusoo biiray channelkeena mahadsanidin qisadeena maanta waxay ka dhacday dalalka carabta mid ka mid ah tuulo yar oo ku taalay oo ahayd tuulo iska yar dadka joogaana ay badidooda isgaranayaan ayaa waxaa ku noolaa jiray in lagu magacaabo Cabdalle dal reerkiisu waxay ahayn reer danyar waxaa ku shaqayn jiray magaalada caasimadda ah gaar yar buu lahaa subaxdii aroor u baxaa fiidkiina xilli dambe ayuu yimaadaa mana u suurtagalaa inuu magaalada dego sababtoo ah dhaqaalaha darteed inta ay shaqeeyo bay reer ku dishan marka laba meelood looga kala noolaa Cabdalle habeen kasta waa soo dheelma jiray si uu ugu soo hayado gurigiisa mana uu soo qaadi jirin wadada isku xidha tuulada iyo caasimadda waxa uu soo qaadin jiray wada yar oo qarjajeexa si uu soo gaabto safarkiisa wadadaas waxaa ku dhex yaalay marka khaburo habeen ka mid ah habeenadiisa soo dheelmadka soo socda ayuu soo maray wadadii habeenka roob daay carradu mugdi iyo qabow ahayd markuu soo gaaray khaburihii ayuu wuxuu ka dhex maqlay cod qof dumar ah oo ka dhex oynaya khaburaha markii hore wuxuu sii waa dhagahaaga oo sii socda wax yar gabaadii haddana waa uu maqlay uu taajiyay gaadhigii waa uu u dhageyso si wacan wuu harqansada marka ay khaburaha dhexdiisa qof dumar ku dhaxay gaadhiga ayuu taajiyay wadada ayuu gees uga soo leexiyay kadibna waxa uu u dhageysaday codkii markuu hubsaday in qof bini'aadmi ku dhaxaynay meesha ayuu soo dhawaaday khaburihii waxa uu yiri yaa jooga meesha balse qof dumar ah ayaa ka dhex taayso meesha oo ku tiri waa aniga anoo nool ayay u joogeen tale waa isku naxatay xilliga xilli dambe ugu tahay meesha waa dowladda iyo caasimadda dhexdeeda waa ku dhiiro waay marka inuu dego u tago qofkii soo weydiiyo waxa ku dhacay dibna waxa uu ku fiiy khaburii toosh markaas ayuu arkay khaburaha soo u dhow dhacayso inuu qofku ka dhex tahay waliba khabar cusub mar dhow la aasay inta kadib taleefankiisa ayuu darsaday macnaha tooshkiisii gaarigiisa ayuu faraha ku riftay iska xadiriyay gurigiisa sababtoo ah absaarsid looga degi karayo carruur waa mugdi qabow waa jiraa meesha waa cidlo habeenkii gurigiisa iska tegay waa iska seexday subaxdii masaajidka markuu aaday uu dadkii masaajidka jooga oo sheekiyay kadibna waa loo qoslaa Cabdalle isinimadaada ma malaynayna qaburuuri ku shaqarayaan waa iska caadi la ragal baa dadkiisa yeesha ku dhacda hawshaas kale markii laga reebo odo lagu magacaabo Abu Camaar oo hadalkiisa sida uu qaatay subaxdii uu tagay wuxuu tagay khaburihii uu ku tilmaanay waliba qabriga uu tilmaanay oo qabriga mar dhow baa la aasay ما qofka meesha lagu duway 3 bari camal meelahaas buu aasay markuu qabrigii galay waxa uu arkay gabadha qabri lagu aaso qof dumar ah in meesha ka sigtay dharkii ay xidheen ay iska bixisay laakiin qofka markaa ma fisayo kadib boolis buu wacay ambalaas wacay qofka meesha laga qaaday istaal baa la geeyay haddii la geeyo istaalkii bara waxa la qofkaan waa noolay waa ku jidaawayaa oo 3 bari bay qabriga dhex taalay حاول قبري الفديس ونحن ولد وقدر الله ما شاء الله حكمت البرتادو مركي قبل يسون حدي تضبات كبعدي ehelkii ila markii ay maqleen maadaama dad meesha tuulo yar tahay dadka intooda badan ay isgaranayaan deetana waxaa la soo qabtay odayii iyo inamo uu dhalay gabadhaani waxay ka mid ah dadka tuulada waxay la dhalatay 3 wiil ayada ayaa gabar reer ku ah waan u yar tahay ayadoo iska joogtay gurigeeda balana ka beersan tahay unbay maalin hooyadeed banaanka guriga soo baxay qaylisay darsiga ku soo baxay ana tiri gabadheedii baa dhimatay tuulada istalka la geeyay isna wuxuu yiri waa mid walaska sanabo bar gabadhaan markii dambe qabriga la soo saaray oo la baray waxa la ogaaday in jug madaxa looga dhigtay sidoo kale la ciijiyay saasay tahana ma aysan dhiman xataa ayada 3 bari qabriga ku jirtay bariis baa duwada u sii laabnaa kadibna waxa la qabtay odagii iyo wiilashiisii wiilashu waxay dhaheen anagu waxba kuma ogeyn walaasheen in iska dul dhimatay baan mooday odagii baa leeyahay odayadu maxaa leedahay wuxuu yiri wallahi anigu waa aniga af kale ma ana u dhaadhay xaq alle laakiin waan mooday inuu soo noolays baa ka baxada ku soo noolaatay warkaa caday wuxuu yiri wayahan oo dhan magaalada waa dhaxmar way odayaashiina wala sheexay sababtoo ah waxa war faafa gabadhay inaan tuulada u dhashay inay wax ka dhaxeeyaan isla markaana qiyaanad aan haddana gabadheena tarbiyadeeda anoo intaas oo maqlay haddana aan dhag u dhigin baa maalin dhex dukaankeeda waxay u yimid baqshad daan furana sawiro
gabadheedii yankii iskula jiro dee leeyahay duna waan xanaaqaasaan dee go'aansadeen iska beero carta iyo ceebta suuradii away baa layidhi waa uu keenaa haddii la baaray waa photoshop yacni suuro oo dee la sameeyo suuro originaal ahayn yaa ku keena inan buu tilmaamay mustaq lagu magacaabay inankaa lasoo qabtay hayaale xagata ka tabsafuranta waxaa ii soo reebtay abu jacfar xaaskiisa abu jacfar waa odagaan gabadha dhalay wuxuu leeyahay laba xaas midaan uu gabadha u dhashay iyo tuug kaloo gabdho kale u dhashay tii kale waay marka waa lasoo qabtay hayaale maxaa dhacay waxay waraqahaan waxaa dhacday ma garanayo wallah maxay weydiinaysay waxaa le warqadaha xagata keenta adaa ilaa inanka usoo dhiibin bay tiri cadaynkii igu haya allay kata ma taqaanid may ma garanayo loo yaab haya waa layidhi waaya inankii waa la qabtay waxaa la hayay kafay maa lagu siin mise dee aad u dhaqsan saad u sheegto meeshaad faahigeeda waa la iga tuuri islaantaanba ay soo dhiibtay kadib waxaa lasoo baaray hadalkii magaalada galay ciddii ka dambaysa oo warkaa faafisay haddii la baarana islaantii unbuu kusoo arooray inay islaantaa qaban ka dambaysay daabtiyaa la qabtay waxaa layiyo dee kufay baa lagu siinaya adima mayay tiri kufay mar rabe anaa iscadaynayay dhegaysta marka inankan anaa warqado soo dhiibay warkaana faafiyey sababtoo ah waxay tiri odagaan noo dhalinyaro ah ladanoo qurux badan buu u guursaday hantina haysta soo faqiira gabdhaan u dhalay maxaad gabdha igu dhashay darteed ayuu iga tegay uu gabar kale ila guursaday si wiil loogu dhalay wiilal markii loo dhalana waabana ilmaana markaa odad baan u hayay waxaa le marka dad qudadaysa maxaad uga arsabaysa asaga maxaad nugeya inantayar dee waxay tiri si islaanta leela guursada qalbigeeda nu gubo baan inantayar uga taaqlisayay dee waan ii hirgashay inkastay usoo noolaatay maxaa lagu xukumay bay kula tahay islaantii waxba lagu xukumay sacaale inkaar qabtay reeraha isku didha waradanbaa urlaaban howlaha noocaas odagii xataa waa la tabsa xawsaale inkaar qabayo hadilin dadka waxaa kusoo haray odagii gabadha soo faagay waad isweydiinaysa baa dareemayaa ciduu ahaa waa adaga dhalay inanka yar oo lagu nabtay gabadha inay wax ka dhexeey odaguna waa iska daraysanaa in gabadha yar laga taalusay marka asagaa soo faagay dee inantaa yaray inankeedu beriya u noqdeen dabcan waa ina noqdeen halkaasay qisadeenay maanta ka og tahay hala yaabnina codkeena dhammaadka ah waa iska eegi doona insha allah ayaa hadduu wax duuduubo asaa iska toosi doona midda kale asxaabay noogu soo sheeg pointiga part 2 qisada aan soo geli doono halkaan nagu soo biira oo channelka subscribe noo saara nala dareensiiya halkaan inal kaga baahnaa oo aniga iskii salaam halkaani waa Bahar Nahri wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh